kulankan oo lagu taageerayay in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo ayay magaalada Muqdisho ku qabteen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo bulshada rayidka ka soo qaybgalayaasha kulanka ayaa watay borar ay ku qoran yihiin ereyo looga soo horjeedo in doorasho dadban ay Soomaaliya ka dhacdo 2022 iyo in laga gudbo nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 oo xisbiyo lagu tartamo waxaana hogaamiyaasha xisbiyada siyaasaddu ay dawladda ka codsadeen in shacabka codkooda dib loogu celiyo idinku idin shaqeynaya madaxweynaha dawladda idinka idin shaqeynaysa waxaad rabtaan waa inay ogolaadaan maxaad rabtaan waxaad rabtaan doorasho qof iyo cod Soomaa qof iyo cod doorasho qof iyo cod markay timaado waxa imaanaya xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay oo dastuurka ku qoran baa imaanaysa waxa imaanaysa marka qof aad soo doorateen oo codkiina ku yimid uu kursiga tago ama xildhibaan noqdo ama madaxweyne noqdo ama qof la mid ah uu noqdo in aad la xisaabtantaan baa imaanaysa waxa imaanaysa inaan haweenka la kufsan karin waxa imaanaysa in caafimaad yimaado waxa imaanaysa in wadooyinka la idin furo waxa imaanaysa inaad biyo nadiif yeeshaan hooyooyinka dawladnimada dhisay hooyooyinkii dadka badbaadiyay hooyooyinkii u soo dhabaraaday dhibaatadii badnayd ee dalka ka dhacday inaan dareenkeenna u sheegnaan rabnaa oo aan duco ugu darno waxaan rabnaa doorasho qof iyo cod ah ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga NDP xildhibaan Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa shir madaxeedka magaalada Muqdisho uga socda dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ugu baaqday inay ka taliyaan sidii dadweynaha codkooda loogu celin lahaa waxaanu halkan ku cadaynaynaa inaanu rabno inay doorashadani noqoto mid xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ah intii laga gaaro taas oo ku cad dastuurka qodobkiisa koowaad waxaanu diidanahay 4.5 iyo doorasho dadban iyo qabiil wax lagu qaybiyo waxaanu rabnaa cadaaladda uu dastuurku qaranku uu siiyey qof kasta oo muwaadin ah waxaanu ku kalsoonahay nidaamka axsaabta badan ee 5 sanadood loo soo diyaargaroobayay ma rabno Soomaali lagu kala qaybiyo qabiil aan waliba cadaalad ahayn maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho.